waa halbeega wararkii iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono Cumar Filish oo gabagaba ka siiya xarunta gobolka Banaadir, Xasan Sheekh oo diyaariyay shaqsigii lagu bedeli lahaa, guux ka jira Villa Soomaaliya iyo siyaasadda madaxtooyada oo markan isbedelaysa, dabaysha xilka qaadista Xasan Sheekh Maxamuud oo dul hoganaysa siyaasiyiin ugu horeeyo Cumar Filish iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir. isbeddelka uu samaynayo Xasan Sheekh oo laga dareemayo madaxtooyada, kulamo aan loo kala kicin oo ka dhacay Villa Soomaaliya iyo odayaasha Mudullood oo kulan la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warbixintan, balse marka hore sii sheergaree muuqaalkan oo leegna saar, kuna soo biir boggeenna Facebook ee halbeega wararka si aad ula socoto xogaha iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. waa hagaag aynu ku horeyne waa uu ku daayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish xilli ugu dambeyn la diyaariyay warqadiisii xilka qaadista iyo shaqsigii booskiisa geli lahaa. halbeega wararka ayaa helay xogo hoose oo tilmaamaya in saacadaha soo aadan lagu dhawaaqi doono gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, isla markaana siyaasiyiin dhowr ah ay wadraadinayaan xilkaasi. ila madax bannaan ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyey wadatashyadii uu sameynayay, waxaana jira dad la sadaalinayay oo daadku uu qaaday iyo kuwo kale oo saadaasha aan ku jirin oo markan qarka u saaran inay helaan gudoomiyaha gobolka Banaadir. ninka hadda ku magacaaban gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, Axmed Meyre Makaraan Axmed Faal, ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii sida weyn u raadinayay jagadaasi, balse waa uu ku hungoobay damiciisa sida xogtaan helnay ay tilmaamayso. sidoo kale waxaa la soo tabinayaa in Jenaraal Xasan Maxamed Xuseen Mungaab isna laga reebay liiska kadib markii wadatashyada la sameeyey aysan xubnaha qaar xisbiga UPD ogolaan in labadaas midkood la magacaabo. Xasan Sheekh ayaana la sheegay in isaga iyo ugu dambeyn saaxiibadiisa ay go'aan ku gaareen in gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir uu noqdo ninkii hore u soo maamulay xarunta gobolka, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. ugu dambeyn waa la isku raacay in Madaale loo magacaabo xilka gudoomiyaha gobolka, inta kalena daadka ayaa la raaciyey si mar kale looga dhigo gudoomiyaha gobolka. waa in la fiiriyaa wada shaqaynta iyo saaxiibtinimada Madaale Xasan Sheekh Maxamuud oo xitaa uu si weyn qayb uga ahaa ololihii doorashada xilka madaxweynenimo uu ku helay. waxaana ila xogogaala ay noo xaqiijiyeen in 80% Xasan Sheekh uu ku qancay in Madaale uu ka dhigo gudoomiyaha gobolka Banaadir. guux weyn ayaa durba jira oo ku aadan in habqaybsiga beelaha oo ay diidan yihiin qaybtood in ay heli waayeen hogaaminta gobolka Banaadir, isla markaana ay cabasho ka wadaan magacaabista Madaale. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor intuusan soo saarin xil magacaabistaasi waxa uu ku dadaali doonaa inuu qanciyo odayaasha beelaha Mudullood oo iyagu si gaar ah u doonayay in gobolka Banaadir la tashi laga sameeyo, gaar ahaan beesha degta Warsheeq oo xilka qabashada ah markan iyaga ay doonayaan inay helaan gobolka Banaadir. hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo kala duwan la qaatay odayaasha Mudullood ayaa ku qanciyey in loo daayo qofka isaga uu soo magacaabayo gobolka Banaadir, balse uusan noqonayn inaan u dhalan beesha Abgaal sida uu odayaasha ku qanciyey. hase yeeshee weli ismari waa ayaa taagan, khilaaf iyo guux weyn ayaana ka jira villada oo ku aadan shaqsiga noqonaya gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe. nabadgelyo.